نقضي حالي ciidamada deegaanka waxay weerar ay ku qaadeen degmada lambar 5 ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas ay kala wareegeen militariga xoogga hore ugu joogay dagaalkaasi waxa uu soo gaaray aroortii taas uu soo gaaray dagaalka cilisa waxa soo qaaday militariga meesha laga raacay soo qaaday ciidamada ciidamadii magaalada hore u qabtaan ahayn dagaalku dib u galay ciidamadii markaas waa laga saaray warkii ugu dambeeyay waan ka helay deegaanka Moori waxaan ka helay ilaa 3 gaadiid kuwa gaar ahaan gaadiidka caasiga loo yaqaano inay ku qaateen dhaawac iyo mid ay ku qaateen mid kamid ah saxdaas caasina uu ku rugmaday inta uu dhaxaysa deegaanada alaanta buuro iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo way aragay uu ku rugmaday gaadiidka caasiga iyo mid dagaalkaasi kadib dowladnimada maanta dagaalkaasi daba taagan oo ka dhacay magaalada marka oo ciidamada deegaanka ay ku qaadeen waxa inta badan ay leeyihiin ciidamada deegaanka fariisiga ay ugu sugnaayeen sida gurigii Faamaanjeero oo fariisiga waxa maamulka Shabeelle sidoo kale ciidamada deegaanka waxay la wareegeen xaruntii hore hay'adda isku kaalmo oo hadda noqotay fariisin military noqotay oo noqotay militarigan adiga wuxuu kula wareegay labada fariisin ciidamada waa la wareegay sidoo kale xaruntii Imaan Center oo ku taala bartamaha magaalada marka waa la wareegay hase ahaatee xilli lagu qiyaasi karo la wareegay dowladda mid ka dambeeyay ciidamada deegaanka dib ugu soo dhawaan magaalada waqtigan kula hadlay xabad waxay ka socotaa xaafadda lagu magacaabo Ayuu oo dadka magaalada marka xabad ay kala ay ka socotaa oo ciidamo kale oo cusub oo kuwii hore magaalada u qabtaan ahayn ay dib u galeen sidoo kale militariga magaalada laga raacay oo hadda isku soo abaabulay waxay magaalada bartamaheeda ay ku dileen nin lagu magacaabo Xasan Maxamed Abu oo ku magacneeray Xasan Garan oo kamid ah shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud kamid ah magaalada ku dileen weliba isagoo markaas kamid ah dadka dhalinyarada xaafadda ku kala kamid ah ay magaalada ku dileen midkiisana hadda ilaa iminkadan wiil waxa la soo sheegay in wiil la xabaduna ay iminkadan socoto guribada xogana ay ka imaanayaan dhinacaasi magaalada gobolkeeda kula wajahan magaalada marka waa ciidamo xooggan waa ciidamadii maanta magaalada inta badan la wareegay ciidamada deegaanka wararkan iyo sidoo kale waxay sheegayaan in xaafadda wacyiina wadadii ka soo gelaysay buugaca iminkadan ay go'an tahay markaana ciidamo aad u xooggan oo la warjibinayo ku sugan yihiin oo ciidamada deegaanka buugaca la sheegayo in goordo ay xabada ka dhici doonto laakiin xaqiiqada kumiyaanan helin saalax haddii aan dhinaca kale ku weydiiyo hadda dadka ku dhageysanaya ma u cadayn kartaa number 50 ciidamada deegaanka miyaa gacanta ku haya mise ciidamadii gobolka ku soo duulay degmada lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose in aan kula hadlay waxa gacanta ku haya ciidamada deegaanka oo aroortii saaka la wareegay dagaalkii saddexaad oo barnaamijka ay ku dibiyeen militariga hore deegaanka ugu soo duulay hase ahaatee ciidamada deegaanka way ku mid yihiin inay gacanta degmada lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose iminkan aan kula hadlayo lambar 50 waxa gacanta ku haya ciidamada deegaanka waxaana saacada ka deegaanka ka gaaray gudoomiyaha degmada lambar 50 Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ana hogaamiyaha ciidamada deegaanka ayaa deegaanka ka gaaray lambar aan kula hadlayo waxa xaqiiqa ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayaan deegaanka lambar 50 sidoo kale waxaan ka ilaaway deegaanka lagu magacaabo Buulanaag oo u dhexeeya lambar 60 ilaa degmada lambar 50 in lagu galay maleeshiyaad oo ka tirsan degmada Caymareeg oo ka tirsan isla markaana lagu daagay in ay xoojiyaan dagaaladii lambar 50 hase ahaatee ciidamada badal ah oo ciidamada deegaanka ah ay ku soo celiyay waana lagu soo geliyay dagaalkii badalka ah ee ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Buulanaag oo u dhexeeya lambar 50 iyo sidoo kale Caymareeg okay dhanka kale marka aan ku weydiiyo hadda dagaalka ka socda marka gudaheeda ma waxa uu ka socda xaafadda Ayuub kaliya mise waxa uu ka socda deegaano kale isla magaalada ka tirsana waxaad marka hore ii sheegtay in Imaan Center iyo intoo dhan ciidamada deegaanka ay qabsadeen haddana dib ay uga baxeen marka dib u bixitaanka waxay soo gurteen ma aragtay xaafadda Ayuub waxaan kugu sheegay inta badan magaalada bartamaheeda markay ciidamadu gaareen waxa amar lagu siiyay dib ay ugu soo gurtaan isla markaana fariisin fadlan ay ka sameystaan xaafadda Ayuub oo ku taala gudaha magaalada marka isla markaana inta badan ciidamada deegaanka fariisin waxay halkaas ay isku dayayaan militariga xoogga ku soo duulay magaalada marka qabsaday inay ku intidaan isla markaana deegaanka kala wareegaan hase ahaatee ciidamada Soomaaliyeed deegaanka waxay ku intidayaan inay gacanta ku fiicayaan xaafadda Ayuub waqti ugu dambeeyay inta ay helayaan waxay sheegayaan in deegaanka iminkan ay ka baxeen ciidamada gurmada oo gaaray degmada marka ciidamadan iminka ku sugan gaaray ay wararku ay helayaan sidoo kalena waxaa jira khasaare xooggan oo dagaalada iminkadan soconaya ka soo gaaray maleeshiyaadka deegaanka ku soo duulay weli maana helin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada deegaanka
dhinaca kale markaa kaga weydiiyo dagaalka lambar 50 waxaa la sheegay in ciidamada dawladda ee maleeshiyada dawladda ee saldhigoodu ahaa muuri ay dagaalka ka qayb galeen oo technical aad u fara badan iyagoo wata dagaalka ay ku jireen arrintaas ma noo xaqiijin kartaa wariye Saalax maxamed inta badan waxaad ka warqabtaa markii dagaalada ka dhacayeen deegaanada shabeellaha hoose ee dalalkan u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale maleeshiyaadka soo duulay inta badan ay gacan military ka helaan ciidamada militariga ee dowladda xasan culusow iyo sidoo kale sayidadii militariga ay ku dagaalamaan hase ahaatee maanta waxay jireen in ciidamadii ku sugnaa deegaanka muuri in badan isku dayeen ay gurub badan ay soo sameeyaan hase ahaatee dagaaladii maanta way ku guuldareysteen in badan way jiri jirtay dagaalo hore uga dhacay lambar 50 iyo meelo kamid ah in gurmadii soo kale ay soo sameeyeen isla markaana ciidamada deegaanka ay dib usoo bixaan hase ahaatee dagaalkii maanta taasi ma aynan dhicin ciidamada deegaanku ay koon jireen inay la wareegaan isla markaana ay gacan wada ku dhigaan degmada lambar 50 ee gobolka shabeellaha hoose saacadan aan ku hadlayna degmada lambar 50 waxaa ku sugan hogaamiyaha deegaanka cabdullaahi cali axmed wafow militarigii iyo sidoo kale gaadiidkii dagaalkan ay kusoo dagaalgaleen maanta way ku gabeen dagaalkii maanta ay kusoo qaadeen degmada lambar 50 isla markaana si dhabarjibin ahaan iyo guruud ahaan ay ugu soo qaadeen deegaankaasi komitiyaasha deegaanka ay ku guuleysay in mar kale ciidamadaas ay dib u celiyaan isla markaana ay si guuda gacanta uga dhigaan degmada lambar 50 ilaa iyo gobolkii degmada lambar 50 ee gobolka shabeellaha hoose isla markaana gaariga ku haya deegaanka muuri aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariye Saalax Kalgacal oo ku sugan jiidaha hore dagaalka ee hadda ka socda gobolka shabeellada hoose